هلعي أنا معناها رفنايو استمنهية أي قرحنا لها وقالكي إجمتين لكن وح عرفتي ماين saacadu markay ahayd 12 galabnimo ama 5 galabnimo iyo qadar 40 ama 35 daqiiqo oo kala ah ayuu weerar ku dhacay markii idaacadda codkeedu kor u kacay al-shabaab waxay ogaadeen inaan ka tirsanahay wasaaradda warfaafinta waliba qaybta radio Muqdisho waxay ii maleeyeen qorshe ah in la idilo marka xaafadda tago xabad ugu horeysay ee ugu dhifteen marka xabadaas waxay ula jeedeen adii wadnaha jara dhinaca wadnaha la aadeen marka ilaa amarkiis way ugu dhacday waan iga baxday dhulka ku dhacay marka aniga qalabkii awatay microphone-kii record-kii wixii oo dhan أفرتي أبريل أيام وحان إمد بإذاعة حان إمد ماشان وسارد ورفافنت أنا أملينا يا مركا إن لو قوانا يو مناسبات هل يويري وحكان عيسى تياترك وانتقي صفق وسكي أيام كفريست marka xoogaa joogno dad kala duwan oo qaybaha bulshada ah isboortiga hadii aan lahayd dhalinyarada hadii aan lahayd haweenka dawladda dadka socod dad iska caali oo dadweyne la casuumo kale dad kala duwan ku sugnaa fanaaniinna way joogeen heesaha halkaas ka socday hees u qaadayo Saciid Daawud Masxaf hees wadani u qaadayay ayaan tagay dhinaca kalena waxa ka timid nashaad heeskii baan xoogaa abwaankii heeskii inkii fanaankii la heesnay waan kasoo tegey marka waxaan soo salaamay weriyaal oo fadhiyey meesha halkaan soo fadhiisiyey waxbaa la yidhi markaa waxaan idhi meel xaggaan fadhiyaa xaafadii ayaan tagay xaafadii markaan tagay buuq ayaa la sameeyay banaanka u soo baxay waxyaabo noocaas oo kale albaabka ayaa la soo garaacay in qorshaha ilaahay markiis waa fahmay albaab labaad ayuu lahaa guriga albaabkii labaad ayaan ka baxay qorshahoodii iyo dhagartoodii maalintaas sidaas ayaan uga badbaaday waxaa iga soo horbaxay laba nin oo ka tirsan shabaab waxay isku dayeen inay iqaarijiyaan ha yeeshee ma aysan dhicin ilaahay xaggiisa ayaan ka noolahay waxayna igu dhufteen 7 xabadood markiiba waxaa meesha ku sugnaa ciidamo booliis ah oo aan goobta aan ka fogeen markaan ka baxsaday oo aan ciidamadii booliska ku dhawaaday ciidamadii booliska ayaa iga fujiyay oo rasaas ku furay kadib madaxdii timid barnaamijkii bilowday khudbadihii markii la gaaray oo kale ayaa anagu u baahanay inaan codad duubano dhinaca sameecadda oo afka hore aan tagnay khudbadaasay u socotay xilligaas waxaa hadlaya ra'iisul wasaaraha laakiin runtii waxaan isleeyahay hal sano gudaheed ayaa waxaa isoo gashay holac holacii anoo macnaha rafanayo istiminhaya ayaa qaruxna dhacay joog marka meeshii oo dhan waxay noqotay meel boor mugdi wala is arki waayo wax aragtii mahayn oo aragtidu waa waxay iga ahayd wax mugdi qol mugdi ku jiro kale waxaan arkay male
ka hor intaan weerar ku dhicin anigu idaacadda waxaan ku qornaa warka saacadda ee 5 galabnimo warkii saacadda markuu ii soo dhamaaday sida caadiga ahaydba waxaan u soo degay hoos oo saaxiibaday aan u imid inaan la qaxweeyo annagoo sida u sheekaysanayno ayaa maqaayadda banaankeeda waxaa ka soo dhacay xabad markaan xabaddii wada eegnay wuxuu noqday nin qori wata oo mataqaanaa xabad wuxuu ku riday wiil caseeya oo meesha fadhiyay waxay ii beegsanayaan waxay ahayd waxaan ahay saxafiyad saxafiyiintuna waa ogtahay iskuma jiraan qaar dadka wadada saxan ku toosiya sida wasaaradda warfaafinta saxafiyadda ka shaqeeyo kale anigana markaas waxaan joogay radio Muqdisho ay ka nacab yihiin malakamoodka qof walba oo Soomaaliya wuxuu ugu xukuman yahay dil qof walba oo horumarka Soomaaliya gacan ka geysanaya dil ugu xukuman yahay inta kadib markay dhacday sawaxan kan maqlayaa dadku waa dhawaaqooda waa maqlayaa adigu wax oo markaas ii imaanayo caawinaya ma jiraan haddana waxaan is leeyahay aad ka cadido 3 jeer baan waxaan tirgeliyay inaan istaago marka waan istaagi waayay oo lug walbaaba meesha ka jaban tahay ayaan dhigtay kadibna waan dhacay waxaan arkay gacantii oo xoogaa meelahan qoyan saas u dhahay markii dambe dhiiga arkay gacanta ka arkay dhiiga marka arkay asaas daadhay waa ilaa dhiig badan oo shaatiga dhan qoy ma ka waraayo marka gabdhaha fanaaniinta gabar ka mid ah ay soo carartay garbisaarkeeda iga xirtay sidii waxa ku noqday dadkii dad gureynay isbitaalka loo qaaday ilaa isbitaal Madiina Boston meesha sokoorsada markii la geeyay waxaa dhacday markii way iga jeexeen aduu meel waaska ay gashay markaas waxaa iga tagay xusuustii baa iga tagtay inka bacdi waa soo noqotay maskaxdayda waxaan dareemayay in meel kelida ah oo maqas oo saa ugu qabanayo orodkii marka aniga aan orday baan waxaan ka hortagayba nin kale oo sii diyaarsanaa oo gudaha maqaayadda fadhiyay marka annagoo kii bannaanka ka cararaynaya gudihii qarax ka dhacay runtii qaraxaas oo dad badan galaaftay qaraxaas dadka uu dilay ee aan garanaya waxaa ka mid ahaa allah u naxariistee agaasimaygii hore cabdiraxmaan yaasiin idaacadda VOD sidoo kale dadka ku geeriyooda waxaa ka mid ahaa cabdistar daahir sabriyo oo ka tirsanaa TV-ga qaranka runtii cabdistarna maalinkaa waa xasuustaa waa u soomanaa maqaayaddana wuxuu u yimid inuu ka qaato afur uu ku afuro waxay go'aansadeen inay iska ka horwareejiyaan ayagoo dantooda fiirinaya dhowr mar ayay isoo ataageen mar anigoo suuqa jooga mar wataa kuu sheega guriga jooga fariimaha ay soo dirayaan xad ma aysan lahayn anigana taas markaa dhig uma dhigaynin waxaa iga go'oneed inaan u shaqeeyo bulshada Soomaaliyeed si aan dalkayga wax ugu qabto mar alla markaas soo baxay oo soo degtay oo albaabka aan imid moota aan watay meesha ii taale horta waxaa anaga tilmaanooda cabsidii naga badatay wariyaal badan la dilay dad badan marka waxaa shaqo ka dhigan marka guriga ama goobta shaqada ka soo baxno dhinacyada fiirna dhinacana fiiriyay way banaaneed qofna ma joogo dhinacii kale u jeesta dana garabka kale haddana waa fiiriyay laba wiil marka guriga meesha taagan guriga ku dhagan taagan ayagoo iska dhigay sida qof guriga garaacayo kale marka jaa waxa dhaay waa dhalinyaradan gurigan ay ka tirsan yihiin hatta xoogaana mugdo inay dhalinyaro yihiin inay duqiin markaas ma ogeen mootadii iska aaday waa kiciyay kicintii ay kicinay waxaan maqlay qajajjo waqbaakada qof tardaray waa ku jeestiyaa waa marka dhaayna xabad ugu horeysay ee ugu dhifteen marka xabadaas waxay ula jeedeen adii wadnaha jara dhinaca wadnaha la aadeen marka ilaa amarkiis way ugu dhacday waan iga baxday dhulka ku dhacay marka aniga qalabkii awatay oo microphone-kii record-kii wixii oo dhan iyo kaameradii sawiradii wixii oo dhan marka alla markaa dhacay kor u fiiriyay kor marka u fiiriyay waxa ay kor taagan laba nin oo bistooladii la ororday oo rabo inay dhammaystiraan kulay anigu nimankii i weeraray niman aan aqaana ma ahayn laakiin meeshaas waxaan tegi jiray
maalin walba oo jimco ahayd aan meeshaas tegi jiray marka waxaan is oran karaa maalintaas jimcaha ay isugayeen marka dad badan ayaa qaraxaasi koowaad ku geeriyooday ani marka waa ku dhaawacmay oo lugta midig ayaa waxaa iga gaaray dhaawac oo lugta waa jabtay marka anoo weli miirkayga taamiya ayaan meesha seexday anoo sida u sii jiifa oo ka fikiraya ninkii koowaad ee xabadda inagu soo riday iyo maxaa xigi doona iyo haddana qaraxii labaad dhacay ninkii annaga xabadda nagu soo riday waa cararay wuxuu galay annaga waxaan fadhinay meel beer ahaan fadhinay isaga wuxuu galay meel hool oo gudaha ah markaasuu dadku isugu yeeraya isagoo dhahaya waa hoobiya laga soo xaroodo dadki siday gudaha uga xaroodeen qaarkood qaarkii carari karna magaaladooda isaga carareen waxaa albaabkayga soo istaagay ciidankii wasaaradda iyo ciidan kale oo wada socda saas ayaa lagu soo bixiyey maalintii 2009 gurigayga laga soo bixiyey ilaa iyo 2015 waxaan ku noolaa wasaaradda warfaafinta qayb ka mida oo ay degaan dadka shaqaalaha ee xaaladahaas oo kale la kulmo kii la socdaa soo wareegta marka asagoo damacsan inuu halkan igaga dhufto asagoo damacsan ilaa amarkiis baashii ka katibtay qash ee dhacday marka oo la rafanaa wuxuu rabaa inuu ka tuuro oo markaas sababtoo kanna iguma dhufan karo anaa la haysto asagana way ka halawday wuxuu rabaa inuu baashi ka tuuro oo markaas raacsiyo oo igu dhufto rabaa way ka katibtay markaa wahayay iska tuuray dhiiggina wuu iga socda markaas shaatigii jaakadii awatay oo aad ay u qoyaanayeen marka ka haya iska tuuray kanna asagayba ka halawday intuu la rafanaya ka cararay laamiga isgoyska markaa u dhawaaday ciidamo booliis iga hor yimideen istaag markaasaa dha war anigaaba dhaawaca soo ma jeedin dhiigga aw raggi waa kuwaas luuq ku jiro sidii isbitaal madiine liigu geeyey isbitaal madiine markaa tagay saaladaa lii geeyey qaliinaa galay qaliinkii intaa ku jiroo dhan wixii magaalada saxaafiyiin joogay iyo dadkii saxaafadda jeclaa oo la shaqayn jiray iyo madaxyada idaacadahoo dhan iyo tiifiyada ayaa soo dhoobay meesha intaa kadib waa la dhedhehi jiray waana la qaadi jiray waa la adigu in la isuuxiyo in markii la dhahayo oo la isuuxiyo qadka laga saaro ayaa imaan jirtay aakhirkii dambeeto waxaan xasuustaa galab galbaha ka mida iyo 2 iyo 3 jeer waxayd maaqaan in qays ugu soo laalaabanay horta cabsidaas waa jiraysaa weriga kaligiisna maaha ummadoo dhan baa mataqaanaa waxay ka baqaysaa in aafada shabaabku ay waxyeelo ka soo gaarto haddii lagu dhex arko ayagoo ku dhex jira mishinka dowladda laakiin weriyaasha waxaan dhihi karaa waa ragga keliya u bareeray ee laamiga soo istaagay ee mataqaanaa aan khatartaas boqolkiiba xad aan ka baqaynin inkastoo ay baqayaan laakiin haddana u bareeray ee laamiga hortaagan marka waxaan isleeyahay baqdin shabaab laga qabo in aan ama aniga ama asxaabta kaleba aanay shaqada u joojinin laga saaro baqdinta ay shacabka gashteen bulshada Soomaaliyeed heer waxay gaareen qof walba qof wuxuu sheegay uu waayo anagana dadkii waxaan ka saarnay cabsidii iyo baqdintii shabaab ugu jirtay sababta keentay inayna ugaarsadaan taas ayaa dhalisay shabaabku waxa weeye beerahana ma ogola baddana ma ogola meel ay ogol yihiin male werigi iyo nin madaxa iyo nin kastaba way dilayaan meeshaan waxaa la rabaa dadkan isku tariyeen baa u wada saaran yihiin ayaga xaggooda magac kasta loo bixiyo adiga waxa weeye inaad dadkan
dadka walaalaha waddanka dhibaatadiisa inaad soo bandhigto ma ogola. alla dilaa dhinto laakiin shabaab inuu ku soo waco ama misad kuu soo qoro waa ku dila hadduu ku dhaho asaga kuma abuurin kumana dili karo. ilaaha wax dilo ilaaha noolay taasaa aaminsanahay shaqadeedana waa sii gudan hadduu alla idmo. laakiin si gaara saxaafaddu waxaan aaminsanahay inay yihiin isha keliya ee ama dal dhistaa ama dal burburisaa. marka saxafiyiinta Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan u soo jeedinayaa in ay isha san dalkooda ku eegaan oo ay dalkooda dhisaan.